waxaa kaloo wax kale ka baran karnaa haweeneyda hogaamisa Jarmalka annaga dad badan oo culimada kamid ah gabdhaha markay afjigayaan ama ay rabaan inay xaqiraan ama ay rabaan markay kaalinta siyaasadda u diidaan waxay dhahaan waa naaqisatul aqli wad diin aqliga iyo diinta nuqsaan ka yihiin xadiisyo wada falsa ah oo meel ka yimaadeen aysan jirnay kitaabaha jawaab kala soo baxaan laakiin waa u jeednaa Jarmalka ما مركي سدحاد حكومة يسام سو مركي أفراد. سائلكم حليه شيخ سائلكم حليه وحاج شراء مالمها سوشيال ميديا هاي إنه كتشلو سياسي صوماليات وبيننا يحديث كوران هيا ناقصات عقل ودين. شيخ حديث كاس حديثة كوران يوحى لقوه ناقصات عقل ودين. واركي وياهن سوشيال ميديا نكن هذا الكسوق قليل السياسي يراهدان عبد الرحمن عبد الشكور علماء بدنا ويرديان وعلماء المسلمين تكمده ردي قدنا واتكه ليسان محوها هاي ميديا هذا حديثة لكن سيقابن هذا نوجد جوابه حديث كهرت بخاري ومسلم باوريي عدي سجى كهر رئيسي وحديث كاس الدرتي أما ضعيف سينا ما شرته السجر والسياسي حديث ما يقانه حديثكم السجية مثل ما السجنا إنه حكوك يا أم الله إن ما يقابل علمي وحديث كأما ضعيفين كرو أما صحيحين كرو maxay ilay xadiis bukhari iyo muslim ku yaalo culimada ugu horeysay wax daciifiye aysan jirin kumuusan dhiiradeen haduu cilmi xadiis wax ka garanayo waa mid labaade xadiiska macnihiisana muusan fahmin waxay ilay xadiiska nabigu markuu fasiray sallallahu alayhi wasallam aayad quraan uu ku fasiray oo salka u saaray oo aayada quraanka fi suurati al-baqara ku jirta aayatul mudayana ku jirta buu nabigu ku tafsiiriyay sallallahu alayhi wasallam oo masaladu ay tahay dumarka waxa laba la isu daba dhigay inay mid haday halmaanto ta kala xusuusiso xuquuqdii baa la ilaalinayaa xuquuqdii yaa la ilaalinayaa mid labaad way xadiidka muusan fahmin oo wuxuusan u fahmin ama intuu fahmay buu kas iska yeelyeel ayuu uga tilaabsaday xadiidku wuxuu ka hadlayaa wax la yiraahdo ishhaad ee kama hadlayo shahaada kama hadlayo waxaan u jeedaa aayaddu waxay ka hadlaysaa nabigu xadiidka u celiyay ishhaad buu ka hadlaysaa shahaada kama hadlo waxa kala duwan marxaati furka maxkamadda horteeda ah iyo xuquuq ay dadku ruuxu doonayo inuu yaani wax way tawfiiqiyo xuquuqda iyada ah inuu marxaati u sameeyo oo xuquuqdii inayna lumin marxaatiga loo sameeyo iyo waxa kala duwan maxkamadda horteeda marxaatiga la furayo uu kala duwan yahay حديثك يا آيات وحي كهالليان ومسألة الإشهاد الشهادة محكمة معه وقضب كلاه إسلا حديثك لفتي النبي صلى الله عليه وسلم وحكو عدي ضمر كمركو ناقصات عقل ودين وحي هذين نقصك عقلك أنك كتشر محويه وحو النبي صلى الله عليه وسلم سو آيات دي قرآن كهيد سو إلهي الله إسكم الله ما ننسي إسو حسوسيان مركي تكالها المانتو وهالمان بالغا الله نقصانت الدين تنادو maxay tahay bay weydiiyeen wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam soo raggu markay cibaadeysanayaan ayagu salaad iyo soonka kama tagaan waa markay caadadu ku dhacdo taana waa nuqsaanta diinta ma aha waajib ay ka tageen oo dambi ku leeyihiin ma aha laakiin macna wax weeye raggii muddada way cibaadeysanayaan ayagina cibaadadii way ka fadhiyaan salaadii iyo soonkii cibaadaadkii caadadu diidaysa waa mid saddexaad wax la yaab kale waxay tahay ninkaasi xadiidka inuu duro oo meel kaga dhaco oo inkiro wuxuu u sameeynayaa oo hadalkiisa ku cad in uu dumar helo siyaasadda ku taageera bimaana wax weeye xadiidkaasi ma jiree siyaasadda waad geli kartaane haddaan kursiga qabtana dawladda waan idinka qayb geline taageera waay ما سياسة iyo adduunyo iyo kursi la raadinayo ayaa diinta loo inkiraa
وحديث النبي قال له إنكرا يا لكن واحد الكلية أبين صومالي ذا رجي دل كودا بربريي أو دي كودا داديي أو كرامة كودا كعياري أو شرف كودا كعياري أو قحيي أو دب أردن وجيستي أي أبال جود وقدرين إنه كرسي ساران أو مضحك دكتور حدنا تي أنت كسوتكتي أيه وحيمد دين تدوري ده إن كراس لينا جرعت سدو شال الدل لبربريي يديك لداديي يومد لبابيي با كراس لوه لو ركبا كراس كفولي ما أنت نوي كسو جدبتيو دينتي ولا عايو أو لو حد جدبه أيه كراس لينا جرعدينية عقلي جاني يدين تاني يضدني مدني أيه مركز التجابينية oo nin walba maalin kursi ku raadinaya marka uu xadiiska nabiga duraya sallallahu alayhi wasallam oo uu inkirayo dhanka kale wuxuu amaanaya Angela Merkel buu amaanaya Angela Merkel habar gaalnimo ku weynaatay oo 70 jir ah oo inta gaalnimo kula ekaatay ayuu amaanaya dhanka kale meeshuu xadiiska nabiga duraya sallallahu alayhi wasallam علماء المسلمين تأيو كبن أبو رنيا وأوليه أحاديث ميلهن كسر ودادو الشيخ شيخان وشيب كودا ككينه علماء دينا وكبن أبو رنيا قال تطبعت تنشيرنا وأمانية وعليها قولها مسلمات قاب إن لا يدين لها الله وننك يا وحلم إذا قاب إذن لها الله عقلي جينية جرات كيني فضيسي كتاي السوي حسلية دمر كوحكة جر هذه لكن عقلينا يا مسكحدينا يا ددنيمدينو ku ciyaaraya asagiya wax lamida markuu ku og yahay ruuxa inaad fahmi karto waxyaalaha qaar kood kugu la soo degdegi maayo laakiin dumarkiiba wuxuu geeyay heer lagu ciyaari karo maskaxdooda lagu ciyaari karo been loo sheegi karo diintooda lagu falaadi karo kadibna la dhihi karo doorta kuraas baan idin ka dharjinaya war waxba kuraas naga dharjinay diinta nabadgeli sooma baan in la yiraahdo والكراس هذا مرة من الدنيا هذا طونه هذا رو دين تنون نبتقلي إن اللي يرادوا بهاي لكن واحد رجينا يا قبلها مسلمات كالصومالية ذي ما أنت تشوجه أنت ويكوعي الرويهين ويكعقل الرويهين ويكدين الرويهين إن دين توضى الله الدره وحديث كالنبي قوضى الله إنكره وعلماء توضى وحلقة الشيخ أو اللي يراد إتاجر كرسي بنكوه لياي ما سيدا صندوقنا ما إله يركز صندوقنا ما يا أبدا سيدا سدرادت السجية أنت لم يتكبر أبال كود وحويان وحى أحاديث تقول جرين وقال هذا هو أماننا يان أو كراسة أي كرادين يان كوهرت كراسة إني ويان أو أمد الصوماليات أي كبر ركتو كاسو كله وحلو ديتنا معها wax kursi la siiyana maaha wax ummad muslim hogaamin karana maaha wax mas'uulana maaha wax mas'uula maaha ummadaha uu ka hadlaya gaalada dhaqamadooda ilaaliyaan culture-kooda ilaaliyaan kaniisadooda ilaaliyaan bible-kooda ilaaliyaan waa ummadan uu amaanayo waay laakiin wax weeyaan adigu culture-na ma lihid diinna ma lihid dhaqan ma lihid ummad baa doonaysa marka inaad qaabkaasi wax kaga hesho sidaas daraadeed waxa noocaas oo kale taa quraanka kariimka baan la yaabay sida uu uga waramay ninkaas waxa la yiri wadaad buu ahaan jiray dadkii wax akhristay buu kamid ahaa waxaan la yaabay quraanka kariimka markuu ka waramayo ruuxa diinta wax ka fahmay ee hadana insilaakhay isagoo diinta garanaya ka dhaxbaxay wuu ka daran yahay ruuxa jaahilkeen diinta garanaya Allah wuxuu ku tilmaamay فمثله كمثل الكلب واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب أي أوكلوا إلهي تصالى وقدر روح انتو الدين تبري أو قرانيا هذا الدين تكدح سيبتي والدنيا كدورتي وكرسي أقح الشيء وحول أقح الشيء وسيدا أقدح بحي دينتي
ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu ay oo kale yahay ayga tilmaantiisu maxay tahay haddaad eridana wuu hiraanhiraya carabku laalaadinaya haddaad iska dayso uu nasan yahayna carabku laalaadinaya waa hiraanhiraya laba gooraba waa hiraanhiraya carabku cariyadu daadinaya ilaahay miisaal xun buu ka bixiyey sidaas daraaddeed waxa noocaas oo kale ah wacyiga ummadda muslimka ah gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed wacyigoodu waa ka sareeya maanta in lagu siro in culimada la caayo axaadiista nabiga la inkiro kursina lagaga raadsado intaasi wacyigiinu waa ka sareeya waana runtii wax way xaqiraad iyo yasid aqligiina iyo maskaxdiina lagu sameeyo waa maalintan muqdisho tagay waxaan la kulmay gabdha iyo dumar badan oo waliba dumarka siyaasadda ku jira ama siyaasadda u ololeeya inay galaan oo Soomaali ah oo hooyooyin maamooyin u badan ayaan la kulanay aniga culimo kale waxaan leeyahay wuxuu ahaa gabdhahaasi waxay raadinayaan waxay leeyihiin xuquuqdii dumarka ee siyaasadda Soomaaliya rabnaa in la siiyo kootadanadii ama qoondadanadii siyaasadda hana la siiyo culimaday la fadhiisteen waxyaalaha isku raaceen waxa ka mid oo leeyihiin annaga wax shariicada iyo diinta ka hor imaanayo marna ma rabno waxay diintu noo okoshahay baan rabnaa waaba gabdhihii siyaasadda ku jiray kuwii kale iska badaa diintooda iyo dhaqankooda iyo culture-kooda iyo inay ilaashadaan yaa asal ah laakiin waxa weeye in diin xoor iyo diin tuur iyo xadiis inkir iyo diinto lagu tunto kuraas lagaga raadsado gabdhaha muslimaadka aqligaasi waa horu ahaa waxaan dhihi lahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan dhihi lahaa tawbad baa ku furan tawbadkeen ilaahay u soo noqo tawbadaadana iclaami kana noqo khaladkaad gashay ilaahayna uga tawbadkeen tawbadu waa furan tahay inta aad nooshahay laakiin sidaas ummadna ku hogaamin maysid kursina ku heli maysid madaxweynena laga dhigan maayo ummadana diinteeda hadaad ku ciyaarto aakhira la'aan iyo adduun la'aan baa kugu dhici ilaahay u soo noqo wallahu a'lam